بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وينا واحدها وفرصتها نسي أن كلنا يبقى مهد علينا. أنت كسكو وحين أقولنا هاي وحين أبرضي رحمة دي ربابك كوجة taas marka waxaan oo keentaa sanad kasta way aragnimada waxaana bartay inay yimaadaan xaalado dhibaato xag la xiriira nadaafadda marka waxaan rabnaa fariinta soo socota dadweynaha daawanaya ama dhageysanaya inaan la wadaagno horta ilaahay weynaa waaxida raxmadda inoo soo saacidiyo abaaraha ilaahayna ka saaro inta ka sokow waan ognahay gaalkacyo kale ma leh drainage system magaalada biyaha ka saara marka biyihii waxay fariisanayaan meelahaas caruurtii waa ku ciyaaraysa dadkii bay muxuu ahaa bay ku dhow yihiin meel ku dhow waaragtana businessyadii waxa isku dhex jira khaasan waaragtan maxaa hooyooyinka ilmahooda u adeeganayay biyihii iyo dhiiqadii iyo wasaqdii baa isku dhex jira halkaas waxaa lagu gadayaa khudaartii waxaa lagu gadayaa hilibkii diqsigii baa abuurbaya marka xaaladaha noocaas waxay noo keenayaan caafimaad darro bulsho oo caam ah oo ay ugu horeyso shuban biyoodyada maxaynu marka u baahanahay waxaa loo baahan yahay inaynu iskaashano annagu marka haddaan nahay bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka degmada iyo heer gobolba waxaan rabnaa fariinta soo socota inaan idin la wadaagno horta dadka waxaan ka codsanaynaa inay caruurahooda ka ilaaliyaan meelaha biyaha wasaqda fariista inay ku cayaaraan dadka la fadhiya dariiqyada raashin ku gadayana waa inay raashinka gadayaan sida rootida iyo khudaartaba waa inay boorka iyo wasaqda fuulaysa ay ka daboolaan hilibka diqsiga waa in laga daboolo diqsiga ayaanka aad buu soo badanaya dadka waxaa laga rabaa khudaartaas ama alaabta gateen markay guryahooda la tagaan waa inay hygiene-kooda ilaaliyaan oo waxaa muhiim ah farxaladii caadiga inuu ahaan jiray si joogto ah u sameeyno marka cunada markaynu karsanayno haddaynu dhaqanka noocan la nimaadno ama gurigeena ku noqono qofku marka gurigiisa ku laabto intuu magaalada la soo macaamilay waa inuu toos isagoo ilmaha iyo reerkii midna u dhawaan musqusha waa inuu tago saabuun ku faraxasho raashinka markii la cunayo intaan la bilaabin qofku waa inuu saabuun ku faraxasho musqusha markii la isticmaalo qofku saabuun waa inuu ku faraxasho raashinkii markii la karinayo kii la karinayo waa in la nadiifiyo khaasan hilibka iyo khudaarta biyo lagu dhaqo qofka karinayana ka hor intuusan karin waa inuu faraxasho intaasoo faraxal markaynu ku darro shanteena salaadood oo waajibiga ahaa waxaynu u dhownahay nadaafadeena inay fiicnaanayso marka waxyaalaha marka dhibaatadii xuunadii muxuu ahaa ay gudbinayeen intaynu gacanta wax ku taabanno inuu afkeena wax ku cuno hadhow noo keenaya xanuunada ku dhaca habka dheefshiidka ayaynu ka hortegaynaa fariinta kale aan idin la wadaagayna waxa way biyaha aynu cabayno way ognahay balid bay fariisanayaan baadihii bay fariisanayaan marka dadka muxuu waxaan ka codsanaynaa biyaha dhaansha inay mas'uul noqdaan kuwa baraagahooda ku shubanayaan ay iyaguna mas'uul noqdaan oo markii baraagahaas biyaha ay soo gaaraan waa in biyaha muxuu ahaa la iska nadiifiyo oo lagu daro dawooyinkii lagu dari jiray oo ay sida caadiyan haddii la waayo xataa nuuraddu waxbay tartaa haddaan intaa la yeelin waxaanoo ugu daran waxa weeye xanuunadii dhacaya habka dheefshiidka oo waxaa imaanaya shuban biyoodyadii oo khatartooda wata taa marka saynu uga hortagno waa inaynu samayno nadaafadda noocaasa biyaha waa inaynu iska chlorination ku samayno baraagaha dadka isticmaala oo iyagana biyaha ku shubana biyaha baraagaha markay baraagta buuxsato biyihii baraagta waa iyagana chlorination lagu sameeyo ama la dhowradeeyo haddii kale bacteria wasaqdii banaanka tiilayay soo qaadanayaan fariimaha meelaha ay biyuhu fariistaan oo ku raagaan sida gaalkacyo kale oo wasaqdu ka abuurayso xilkaas dawladda hoose leh waxaan ka codsanayaa bulshooyinka iskaashadaan in drainage fiican loo sameeyo si hadda ka hor baan arki jiray waxaa la isku day jiray biyaha in la furo ayaan sii horeysay dadaal badan baa la sameeyay tii in hadda la soo cusboonaysiiyo oo biyaha meelaha laga dhaqaajiyo intaas baa muhiim inoo ah dadka marka wixii dhibaata markay dhacda marka iyadana waxaan fariinta u daysan waxa weeye markii aad wixii waa dhici kartaa inagoo dadaalay misna in xanuunada ay yimaadaan markii xanuunada yimaadaan fadlan si degdeg ah waa in loo yimaado muxuu ahaa xarumaha caafimaadka maxaa yeelay xanuunka markii si hore loola tacaalo ayaa wax qabad ku fududaanaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu